nimcada ballaaran ee ilaahayna siiyey ilaahay baynu ugu mahad celinaynaa waxaan kale oo u mahad celinayaa shacab weynaha gobolka Saraar magac kasta oo uu leeyahay iyo mudan kasta oo uu yahay ee maanta sida gobonnimada leh ee awalba dhaqanka u lahaydeen u soo dhaweeyay barasaabkii cusbaa oo ay hareero socdaan oo galbinayaan wafdi aad iyo u qiimo badan oo ay ka mid yihiin salaadiintii ugu mudakarsanayd ee Soomaaliland oo runtii aan si sahal ah safarro dhaadheer ugu gelin qiimaynta ay idin qiimaynayaan iyo qiimaynta uu barasaabku leeyahay intaba aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinayaa idinkana sharaf bay idin tahay in sidaa laydin maamuuso oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu idin dooro macallin xariif ah oo wax badan soo maamulay oo lagu kalsoon yahay oo aynu ku ducaynayno ilaahayna uga baryayno inuu ku guuleeyo sidii horeba ugu guuleeyay oo ugu galladay goobihii uu ka soo shaqeeyay runtii waxa farxadii ah inaan labada barasaab in badan la shaqeeyay oo ay yihiin laba barasaab oo aad iyo u qiimo badan waana wax ilaahay loogu mahadiyo barasaabkii horena waxaynu ognahay inaynaan sharixi karaynin wixii uu gobolkan ka soo qabtay hadday tahay horumarinta hadday tahay nabadgeliyada hadday tahay isku wadka iyo wixii la mid ah sidoo kale barasaabka cusub waa barasaab runtii shirraban oo waxa weeyaan aad arki doontaan wax qabadkiisa ka hor dhici maayo waxaan runtii kaliya oo aan leeyahay barasaabka cusub kelmadiisii wuxuu xoojiyay nabaddu waa furaha horumarka halkan waxa saaka inoogu iman lahaa 6 wasiir oo kale oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed oo shalayna aanu sidan oo kale labadii barasaab ee kale ugu kala wareejinay ceeri gaabo hawl kale oo qaran bay u hadheen aniga ka wakiila barasaabka way inala soo dhaweeyeen idinkana salaantiina iyo maxaan idhaahay sharaftiina way idinkala qayb galeen aad ba iyaguna u salaaman yihiin idina waa ogaanaysaan fariintana aniga ka sida waxaan runtii ku soo koobayaa halkan limcada waa lagu shukriyaa wixii nimca la in shakartum la aziidannakum ilaahay haynoo nimceeyo waa inoo nimceeyo haynoo siyaadiyo waxaa runtii aan odhan karaa horumar badan baynu gaadhnay horumar badanna waa soo socda xoolaha oo keliya maaha gobolkani gudoomiye gobolkani waa gobolka macdanta Soomaaliland shidaalka waa lambar 1 laba barasaabadii kala dambeeyay ee reer Gabiley iyo reer galbeedka ahaa waxay kaloo halkan bareen inuu gobolku beeraley noqdo oo bar ka mid ahina waa beeraley oo beerihiina waanu baranay adna waad ku dari doontaa waan u malaynaya taana waxaan idin sheegayaa horta mashruuca beeruhu wuu idin imanayaa isagoo waafiya isagoo qaybino xoolaha tahay oo calafka xoolaha sida loo kaydiyo ee abaaraha lagaga bogsado qaybna horumar beeraha ay tahay waxa idoo imanaya biyihii oo aynu ka raagnay muddo dheer sugaynay biyihii macaana insha Allah ama balligeena asaynu ballaadhin ama mid kale weyn baynu samayn taana waxa weeyaan inkastoo ay naga raagtay oo aynaan ku talagelin qorshaheena koowaad iyo ka madaxweynuhu koow u yahay waxa kaloo insha Allah iyaduna horumarintii xoolaha gobolkan xoog baa la saaray wasiirka xanaanada xoolaha iyadana waxa weeyaan xagga caafimaadka iyo xagga horumarinta labadaba wasaaraddu xoog bay saartay xagga beerahana waan idinka warramay xagga macdanta waan idinka warramay xagga biyaha waan idinka warramay wasaaradaha kale dhammaanteedba wixii ay gobolkan ka qabanayso qorshay kaleedahay waa ogtihiin
waxyaabahaasoo dhan innagoo dhaqaalaheenna iyo awooddeenna garanayna intay leeg tahay haba yaraatee hagrasha ma jirto taana ilaahay baynu ugu shukri naqaynaa wixii inoo yimaadana waa ku xamdi naqaynaa si wanaagsan oo maxaan idhaahay wanaagsanna oo cadaaladii ku jirtana waa u maamulaysaan insha allahu bismillaahi kariim aad baa u mahadsantihiin anigu hawl qaran baanu ku jirro annagii 3 bilood barigaa joognay hawlihii ilaahay waa noo fududeeyey meel wanaagsan oo gebageba abay marayaan waana lagala shaqeeyo dhaqanka halkan fadhiya waa yeelka iyo waxgaradka meel wacan bay